Waa dhaqdhaqaaq Islaami ah oo xag jir ah kana jira waqooyiga Yemen, isla markaana ka mid ah dhinacyada ugu waaweyn ee ku lugta leh dagaalka sokeeye ee Yemen laga soo bilaabo 2014 ilaa hadda. Shabakadan waxay ka dhalatay dhaqdhaqaaq dib u soo noolayn diimeed oo ay sameeyeen Muslimiinta Saydiya, kuwaasoo ka tirsan farac yar oo Shiicada Islaamka ah kuna badan waqooyiga Yemen, isla markaana ka soo horjeeday faragelinta shisheeye ee lagu sameynayay dowladda Yemen. Cadaadisyo iyo howlgallo ka dhan ah dhaqdhaqaaqaas oo dhacay bilowgii qarnigii 21aad ayaa ku qasbay inay hubka qaataan. Intii uu socday dagaalka sokeeye, iyagoo taageero ka helaya dowladda Iiraan, waxay isu beddeleen awood militari oo xooggan. Sanadkii 2020, dagaalyahanadooda ayaa u muuqday inay gacanta sare ku leeyihiin dagaalka, halka sanadkii 2023 saamaynta caalamiga ah ee kororka awooddooda ay si weyn u soo shaabaxday markii ay iyagoo ka jawaabaya dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ay gantaallo iyo diyaarado aan duuliye lahayn ku weerareen Israa'iil, isla markaana carqaladeeyeen ganacsiga caalamiga ah iyagoo weeraray maraakiib ganacsi oo marayay Badda Cas. Haddaba maxaynu ka naqaannaa dhaqdhaqaaqan iyo halka uu ka soo bilowday? Ku soo dhowaada muuqaal ku saabsan asalka iyo awoodda Xuutiyiinta dalka Yemen. Dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta, oo sidoo kale loo yaqaano Ansaarullah, waa mid ka mid ah dhinacyada ku lugta leh dagaalka sokeeye ee Yemen oo socday ku dhowaad 10 sano. Waxa uu soo ifbaxay dhaqdhaqaaqan sanadihii 1990-meeyadii, markii hogaamiyahoodii Hussein al-Xuuti uu bilaabay dhaqdhaqaaq diimeed oo dib u soo noolayn ah oo la oran jiray Dhallinyarada Mu'miniinta, kaas oo loogu talagalay in lagu matalo laan qadiimi ah oo ka tirsan Shiicada Islaamka oo loo yaqaan Saydiya. Saydiya ayaa xukumi jirtay Yemen qarniyo badan, balse waxa ay noqdeen kuwo la takooro kadib markii nidaam Sunni ah uu talada kala wareegay dagaalkii sokeeye ee 1962. Dhaqdhaqaaqa al-Xuuti waxaa loo aasaasay inuu matalo Saydiya, una diido Sunniyiinta xag jirka ah, gaar ahaan fikradaha Wahaabiyada ee ka imaanaya Sacuudi Carabiya. Taageerayaashiisa ugu dhow ayaa markii dambe loo bixiyay Xuutiyiinta. Dagaalka sokeeye ee Yemen wuxuu bilowday sanadii 2014 markii xoogagga Xuutiyiintu ay qabsadeen caasimadda Sanca, isla markaana ay rideen dowladdii caalamku aqoonsanaa ee ay taageeraysay Sacuudi Carabiya, taasoo dhalisay dagaal sokeeye. Colaadda ayaa sii fiday sanadkii 2015 markii isbahaysi uu hogaaminayo Sacuudi Carabiya uu farageliyay si uu dib ugu riixo Xuutiyiinta. 8 sano kadib, isbahaysigu awood uma yeelan inuu ka saaro Xuutiyiinta dalka, waxa ayna weli gacanta ku hayaan inta badan waqooyiga dalka Yemen. Heshiis xabad joojin ah oo la saxeexay sanadkii 2022 ayaa meesha ka baxay 6 bilood oo keliya markii la saxeexay kadib. Si kastaba ha ahaatee, dhinacyadii dagaalamayay ma aysan ku laaban dagaal buuxa. Tan iyo heshiiskii joojinta dagaalka, Xuutiyiintu waxay xoojiyeen gacan ku hayntooda ku saabsan inta badan waqooyiga dalka Yemen. Waxay sidoo kale raadinayeen heshiis ay la galaan dalka Sacuudiga si ay u soo afjaraan dagaalka daba dheeraaday ayna u xoojiyaan door muuqda oo ay ku yeeshaan maamulka dalka. Xuutiyiintu waa urur ka mid ah ururada ay taageerto Iiraan, waxayna bilowday inay kordhiso gargaarkeeda ay siinayso kooxdan sanadkii 2014 markii dagaalka sokeeye uu xoogaystay iyo markii tartankii ay la lahaayeen Sacuudiga uu sii xumaaday. Iiraan waxay kooxdan siisay hub iyo tiknoolajiyo ay ku jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin miino-badeed, gantaallo balaastig ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, sida ku xusan warbixin 2021 ay soo saartay xarunta daraasaadka istiraatiijiga iyo caalamiga ah. Xuutiyiintu waxay ka mid yihiin waxa Iiraan ugu yeerto Axis of Resistance, oo ah isbahaysi ka dhan ah Israa'iil iyo reer galbeedka, kaasoo ka kooban ururo goboleed ay taageerto Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan sida Xamaas, Xisbullah da Lubnaan, halka Xuutiyiintuna ka mid yihiin 3daas urur ee ay Iiraan taageerto. Xuutiyiintu ma aha urur uu maamulka Yuhuuddu kala kulmayo khatar toos ah, balse saameyn weyn ku yeelan kara dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha adduunka, maadaama ay carqaladeyn karaan maraakiibta Israa'iil ee ku socdaala marinka muhiimka ah ee Badda Cas. Xuutiyiintu waxay aaminsan yihiin in ficiladoodu yihiin kuwo lagula dagaalamayo waxa ay ku sheegaan xidhitaanka Salafiyada ee Yemen, isla markaana lagu difaacayo bulshadooda la kulmaya takoorka. Xuutiyiintu waxay si dhab ah gacanta ugu hayaan waqooyiga iyo galbeedka Yemen oo ay ku jirto caasimadda Sanca, iyagoo u dhaqmaya sida dowlad aan rasmi ahayn tan iyo afgembigii ay sameeyeen sanadkii 2014.
waxay awooddooda ku adkeeyaan isku darka xoog militari, dhisidda isbahaysiyo maxalli ah, barbaarin fikradeed iyo shabakado fog oo ay taageerto Iiraan, kuwaas oo xoojiyey awooddooda iska caabinta. Xuutiyiintu waxay doonayaan inay Yemen ka dhisaan dowlad Islaami ah oo ku dhisan madhabka Shiicada Sayyidiga, iyagoo kor u qaadaya madax-bannaanida dalka isla markaana ka soo horjeeda saamaynta reer galbeedka iyo tan Sacuudiga. Aragtidooda waxaa ka mid ah maamul ku salaysan mabaadi' diimeed oo adag, mowqif ka dhan ah gumaysiga kana soo horjeeda Israa'iil iyo Maraykanka, iyagoo si weyn ula safan waxa Iiraan ugu yeerto xudunta iska caabinta si ay uga hortagaan danaha reer galbeedka ee Bariga Dhexe.